taliyaha xarunta dhexe ee qaatimil ambiya ee dowladda iiraan jenaraal cali cabdulaahi wuxuu ku dhawaaqay isbeddel weyn oo muuqda oo ku saabsan caqiidada militari ee dowladda iiraan inta lagu guda jiray dagaalka maalintiisii 3labaatanaad galay ee u dhexeeya iiraan israa'iil iyo maraykanka. wuxuu sheegay in ciidamada qalabka sida ee dowladda iiraan ay ka guureen marxaladii difaaca ee ay ku jireen tan iyo bilowgii dagaalka, waxaana uu yidhi hadda waxaan u guurnay marxalad weerar ah. waxaana jira sababo dhowr ah oo dowladda iiraan ku qasbaya inay marxaladaasi cusub ay u guurto, waana kula wadaagi doonaa. iyadoo xiisadda ay sii kordhaysa ayaa jenaraalku waxa uu yidhi caqiidada ciidanka qalabka sida ee dowladda iiraan ee difaaca jamhuuriyadda islaamiga hadda wax badan ayaa laga bedelay. waxaan ka guurnay difaacii aan ku jirnay, waxaana u wareegnay dhanka iyo weerarka. oo wuxuu leeyahay maalmihii ugu dambeeyey wixii aan geysanaynay oo idilba waxay ahaayeen isdifaacid dowladda iiraan ay ku jirta, haddana waxaan u guurnay marxaladaani. waxaa intaasuu ku daray in isbeddelkan uu la socdo wax kabeddelka lagu sameeyey xeeladaha dagaalka ee furumaha si ula jaanqaado istaraatiijiyadda cusub ee uu kala jeedo tallaabooyinka iyo go'aanada ay qaadanayaan israa'iil iyo maraykanka. bedelaadda xeeladaha dagaalka waxaan ujeeddadan ka leenahay ee tahay si ay ula jaanqaadaan caqiidada cusub ee cadowgeenna. hub cusub oo casri ah ayaa lagu soo darayaa furumaha dagaalka, kuwaas oo aan horey loo arag, ayuu hadalkiisa sii raaciyey jenaraalkan u hadlay xarunta qaatimil ambiyaha. bal ka waran wuxuu leeyahay marka wixii aad aragteen ee dhibaatada intaa la egeystay maba ahanba hubkii rasmiga ahaa, kuwa cusub oo casri ah ayaan kusoo biirinaynaa furumaha dagaalka. taliyuhu wuxuu sidoo kale uu sheegay inay qorsheynayaan inay jahwareeriyaan xisaabaadka cadowga iyaga oo adeegsanaya hub cusub oo la hormariyey, taas oo muujinaysa in xukuumadda tehraan ay damacsan tahay inay adeegsato awood militari oo ka casrisan midii hore intii lagu guda jiray marxaladii koowaad ee dagaalka. dhinaca kalena afhayeenka xarunta qaatimil ambiya ibraahim zulfaqari ayaa dhankiisa ku dhawaaqay in ay kordhiyeen qalabka cusub ee militariga iiraan ay adeegsanayaan. difaaca dhanka cirka ayuu sheegay inay dowladda iiraan ay soo rideen diyaarado ay lahaayeen cadowgooda uu kala jeedo maraykanka iyo israa'iil, taasoo la micno ah inay sii kordhayso wadarta diyaaradaha dagaal ee maraykanka iyo israa'iil laga soo riday tan iyo bilowgii dagaalka. zulfaqari wuxuu sheegay in ciidamada badda ee dowladda iiraan dhankooda ay fuliyeen howlgallo isku dhafan oo qayb ka ah mawjadda howlgalka 72aad ee ballanqaadka rasmiga ah oo lagu beegsaday baqaaro, kayd shidaal, xarumo militari, saldhig muhiim ah iyo xarumo ku yaala dalalka khaliijka, iyadoo la adeegsanayo gantaallo iyo diyaarado daroonis ah. mawjadii 73aad ayuu sheegay in sidoo kale la bartilmaamaysaday magaalada dimona, carad, magaalada ilaad, bi'ru sabca iyo kiryadgaad iyo deegaano kale, isagoo sheegay in mawjado kale ay harsan yihiin. marka taa laga yimaado, waxaa la isweydiinayaa maxaa dowladda iiraan ku qasbaya inay shaaciso wax kabeddelka istaraatiijiyadeeda, waana maxay sababta keentay inay hadda ay ka guurto nidaamkii difaaca ama istaraatiijiyadii difaacuna guurto mid weerar ah. isbeddelka hadda dowladda iiraan ay ku dhawaaqday ma ahan mid sahlan, waxyaabaha keenayna ma ahan wax fudud, waxaana tani ay ka dhigan tahay isbeddelka dowladda iiraan ay samaynayso inuu ka dhashay cadaadiska militari ee dowladda iiraan, isbeddelka istaraatiijiyadda ee maraykanka iyo israa'iil iyo xeeladaha dagaalka ee dhabta ah, waxaana ay doonayaan inay taas ay la jaanqaadaan. waxaa jira dhowr arrin oo ilaa iyo 6 arrin aan kusoo koobi karno sababta dowladda iiraan ay kaga guurtay difaacii ay ku jirtay una guurtay dhanka iyo weerarka. waa tan koowaade, maraykanka iyo israa'iil waxay weerar toos ay ku qaadeen dowladda iiraan, bilowgiina iiraan waxay gashay dhanka difaaca. weeraradaasina waxay keeneen inay qaataan go'aamo kale, iyadoo bilowgii ay qiimeeyeen mas-uuliyiintii laga dilay dowladda iiraan iyo xarumihii militari ee la beegsaday. arrinta labaad ee ku qasbaysa isbeddelkan waa in dowladda iiraan ay doonayso inay cabsigelin firfircoon ay muujiso kuna soo kordhiso furumaha dagaalka, oo ay ka mid yihiin beegsigii xarumaha dimona iyo xarumo kale oo muhiim ah oo ciidamada israa'iil ay difaaci waayeen 24kii saac ee lasoo dhaafay. waxay doonaysaa dowladda iiraan inay muujiso inay haysato gantaallo qayb ka ah cabsigelinta israa'iil iyo xulafada maraykanka. sidaa daraaddeed waxay beegsatay saldhigyada khaliijka, xarumihii nuclearka ee israa'iil iyo xarumihii tamarta. arrinta saddexaad ee keeni karta inay iiraan ay ka guurto barnaamijkeedii hore ee difaaca waxaa qayb ka ah inay iiraan ka hortagto in dagaalka uu wareegto gudaha iiraan, yacni gudaha dalkeeda in lagu dagaalamo. dal kasta waxa uu qaataa aragti dagaal oo difaac ah, waxaa markaasuu sugayaa weerarka, markaasi kadibna wuxuu luminayaa jihada weerarka. haddii dowladda iiraan ay difaaci kusii jirtana waxay dareemayaan in gudahooda lagu dagaalamayo, sidaa daraaddeed waxay doonayaan in dagaalka ay ka dhigaan mid ka dhacaya meel ka baxsan gudaha dalka iiraan. haddii iiraan oo kaliya gudaheeda lagu dagaalamana khasaaraha iiraan gaaraya ayaa aad u kordhaya mar haddii difaac ay ku jiraan,
waana dareemi kartaa kooxuhu markay ciyaarayaan ruuxa difaaca ah iyo kan weerarka midka dhibaatada ugu badan la kulma sidoo kalena xilli hore daali kara arrinta afraad ee Iiraan ku qasbaysay inay difaaci ka baxdo waa dilka hogaamiyaasha wixii ka dambeeyay markii la beegsaday Cali Larijani Iiraan waxay qaadatay isbedel weyn oo ku saabsan inay jawaabo culus ay bixiyaan hubka kaydkan ay adeegsadaan Iiraan sidoo kale waxay doonaysaa in ay muujiso in ay jibiso awood sarreynta Israa'iil iyo Mareykanka oo inta badan adeegsada diyaaradaha raadaarka ka dhuuman karaya kuwaas oo duqeymaha fuliya xilli ay dul taagan yihiin hawada dalka Iiraan sidaa daraadeed waxay doonaysaa inay muujiso jibinta awooddaasi iyagoo adeegsanaya gantaalo kale oo halkii ay hawadooda ku dagaalami lahaayeen waxay doonaysaa inay ku qasabto inay ciyaarta ay ka soo bilaabaan difaacidda hawada Israa'iil sidaasina waxay ku heli doontaa mashquul iyo in hubka qaarkii ugu yaraan laga joojiyo in lagu duqeeyo goomaha muhiimka ah arrinta kale ee ku qasbaysa Iiraan inay wax ka bedesho taatikada dagaalka waxaa qayb ka ah inay doonayso dagaalka inay ka dhigto mid gobolka oo dhan ka dhacaya oo aanan ahayn mid Iiraan oo kaliya la weerarayo waxaana suuragal ah inay furmo kale oo dagaal ay ku furto Israa'iil iyadoo saacadii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayo suuragalnimada in Xisbullah ay dagaalka ay ku soo biiri karayaan aragtidaada nala wadaag like muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay dhinaca kalena dowladda Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in hanjabaadda madaxweyne Trump ay si dhaba u qaadanayaan haddii la bartilmaameedsado xarumaha shidaalka ee dowladda Iiraanna ay iyagu gabi ahaan bixiri doonaan marinka Hormuz taasoo ka dhigan xitaa dowladihii loo ogolaa in maraakiibtooda marinka Hormuz ay ka gudbaan iyagana caqabad ay la kulmi doonaan sida dowladaha Turkiga, Ciraaq iyo Hindiya aragtidaadana la wadaag muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay